Yakid miyuu dhintay? Mid kale arkay ma midka Yakid baa mise waa mid kale? Haddii uu dhintay yaa dilay? Damiraan miyaa ka dambeeyay inuu dhinto Yakid? Mise Efranos? Shaanshaah ma waxay muuqataa inuu wanaagsanaa doono? Falafios waxa uu ka dalbaday Fatima guur. Nolefera haatan waxa ay leedahay ur. Assalaamu calaykum asxaabay, soo dhawaada haddii aad naga mid tahay muuqaalka like inoo saar, haddii aad naga mid ahayna subscribe dhaho channelkana gambaraalka farasi ay ku soo gaaraan muuqaalada kale aynu soo dhigayno. Maanta miiska waxaa inoo saaran taxanaha Colors Orahaan. waxaynu isla qaadaal dhigi doonaa ama aan ka wada hadli doonaa waa meeshaan ku gorfayn doonaa xalqada 20aad goosgoosyada laga soo bandhigay iyo dhacdooyinka la isdhihi karo waa imaanayaan. sidoo ku aragta hordhaca muuqaalka intaas ayaan meeshaan ku falanqeyn doonaa. markii aad daawato goosgooska laga soo bandhigay xalqada waxaad dareemaysaa in aadan daawanaynin taxano taariikhi ah kaas oo hadda dhanka Turkiyada ka socda ee aad ku dhex jirto dhanka Hindiga siba Bollywoodka aad daawanaysid taxano jacayl ah. waa sida u muuqata in Bozdag uu ka dhigay taxanaha daawadayaasha qaarna ay sidaas leeyihiin. marna waxaa kaamirada lala aadaa sheekada jacayl ee Fatima iyo Falafios oo hadda Efranos noqday. marna waxaa sheekada jacayl lala aadaa kaamirada Orhaan iyo Asborja. laakiin daawadayaashu waxay doonayaan inay arkaan dagaalyahanada taariikhda saxda ah sida Turgut Ghazi, Mikhail Koses, Hassan Alb iyo Ahmed Alb inay ka soo muuqdaan taxanaha sida ay doonayaan daawadayaasha. dhanka kale ninkii lagu magacaabay Yakid maadaama uu dhaawacay Fatima waxa uu xoqday kaarkiisa dhimashada. inkastoo mar walba Falafios ka adkay haddana waxa uu isku sii diray Falafios. ugu dambeyn waxay u muuqataa in godkiisa oo qotay, waxayna u muuqataa in Yakid dhammaadkiisa hadda la gaaray, yani waqtigu taxanaha ka bixi lahaa laga yaabo inuusan ka bixinna. sidoo kale Nolefera haatan ayadana waxa ay leedahay uur. haddii ay dhasho uurkan ay sido oo muraadka koowaad oo noqdo waxaa laga yaabaa taxanaha inay ka baxdo ama laga saaro siisoonka dhammaadkiisa. laga yaabaa inay sii wadato ilay Bozdag soo waxu galayo asli aad la og malahe. ilaa hadda Orhaan waxa uu la daba jiitamaya mise la dabar wareegaya Shaanshaah iyo xulfadiisa. Bozdag ma aha inuu intaani ku sii ekay oo waa inuu meeshaan ka dhaqaajiyaa maqaamo wuxuu doonay inuu siisoonkan ku dhameeyo. waxaa loo baahnaa inuu soo saaro cadowga iyo kuwa ugu waaweynay ee Orhaan sida Andrianikoski saddexaad kaasoo ahaa boqorkii Byzantium, kaas oo ka qayb qaatay go'aamadii ka dhanka ahay Orhaan Bey. dagaalo badanna la galay waqtigii ay socotay go'doomintii Iznik iyo Ismid si uu taxanaha u yeeshto daawadayaal aad fara badan. qaab taariikhi ahna oo ugu socdo taxanaha waa inuu sida saxda ah markaasi u raaca taariikhda Bozdag. dhanka kale aad waxaa muuqataa Yakid Bey in uu meeshaasi kugu daayay. Soomaalida hore oo dhahday gudaqodin haddaa qodanaha dheereen ku dhex doontada lama ogey. Shaanshaah iyo Damiir iyo godka ay qodeen hadda xanuunkiisa waxaa dareemayo Shaanshaah kaasoo hadda meeshaan wiilkiisa ku waayay. hadda gubashada oo gubtay Yakid marun baa ma soo bixin. siisoonkii 6aad waxaan ku aragnay baalaha Haatom in ayadana sidoo kale isaas way gubatay ka dhigin kadibna doorkeeda waan aragnay ay dib u soo baxday. ma laga yaabaa Yakid inuu sida noqdo mase doorka baalaha maadaama ay aad u ahayd mid muhiim ah kaliya daawadayaasha la waabsanayay sidaas awgeed xooga ka gasha la ahayd. marka Yakid ma ku day doonaa mase uu sii joogi doonaa oo wuxuu ku soo baxaya sida qaabka baalaha camal oo kale. waxaa laga yaabaa marka doorka Yakid inuusan si toos uga bixin taxanaha oo weli uu ku jiro balse ay qorshayaal meesha ka socdaan. laga yaabaa Yakid inuusan dhiman meyd kale arkana uu yahay meyd kale oo qaab qorshaysan loo sameeyey. marka waxaa jiri karta laba xaaladood. midda koowaad waa in meydka Yakid mise Yakid uu gubay Damirhaan si uu colaad u dhaxaysa Shaanshaah iyo Suldaan Orhaan mise Orhaan uu kordhiyo. midda labaadna waa in qorayaashu isku dayayaan in Shaanshaah ka dhigaan qof wanaagsan markii uu ogaado Damirhaan iyo qorshe u dhigeen iyo dabinta ay ku dileen wiilkiisa kadibna uu noqdo daacad mar kalena oo garabka Orhaan istaago. dhanka kale Efranos ama Falafios ayaa ka hadlay in Fatima u guursado. Fatimana si farxad leh waxay ugu sheegaysaa hooyadeeda Malhoun Hatum. Malhoun Hatumna waxay u muuqatay in ay ogolaatay. dhanka kale Asborja waxaa muuqataa in kalkani dhanka Orhaan ay u soo badanayso sida la filayo in siisoonkan wax lagu gabagabi doonaa iyagoo ay isguursanayaan Asborja iyo Orhaan iyo Fatima iyo Falafios ama Efranos.